السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا عشر كله أو حصة له مانتا وحصل فيرين دونا جملوينكي أنا قلت قانين جملوينكي فرناي إن لقى ربو إن أتحفظسو أنا استعماشو هدي حتى أتهاي إن برشة اللقدة كعصبتهاي مثل اللقدة كعصبتهاي inta aan u gudagalin jumlooyinka ardayda waxa soo xasuusinayna channelka in la taageero ardayda kale la gaarsiiyo casharada online way socdaan in lagu soo biiro mise xarunteena iskuulka in lagu soo biiro wixii u baahan tahay home tuitioning numberka meesha yaala waana soo wici kartaa macalinka u baahan tahay macaha ahaado macalin Soomaali ah macaha ahaado macalin aan Soomaali ah waa lagu helaa ha ahaado macalin dumar ah macalimaad ahaato mise ahaado macalin ragga waa lagu helaa asla fiirina marka jumlooyinka furan jumlada koobaad waxa isla fiirin doona samahani nimechelewa. Samahani waa iga raali noqo mise waa cafis weydiin. Samahani iga raali noqo nimechelewa waan soo daahay. Samahani waa cafis weydiin waay. Samahani nimechelewa. Jumlada labaad ninaomba waxaan baryayaa maji biyo ya oo kunywa aan cabo. Maji ya kunywa kiimaday hadii laba ku soo laabato hal ku ayaa ka tagaysaa waxaad leedahay ninaomba waxaan baryayaa maji ya kunywa biyaan cabo. Ninaomba maji ya kunywa. Jumlada saddexaad ninakutakia safari njema. Ninakutakia mise ninakutarajia na waadhi kartaa waxaan ku rajeenayaa. Ninakutakia waxaan ku rajeenayaa safar njema fiican. Wuxuu ku imaaday meesha takiya aadhi lahayd hada ficilka taka uu ku imaaday takiya waxaan ka rabaa oo kale mise waxaan ku raboona oo kale waxay ku imaaday waxaan ku rajeena. Ninakutarajia safari njema oo kale waa ninakutakia safari njema waxaan ku rajeenayaa safar fiican. Ninakutamani waan ku damcayaa waa ninakutaka oo kale waa waan ku rabaa oo kale waa ninakutamani waan ku damcayaa. So xoolaha ficilada ayagoo isku macno ah soo xiliga waxa arkaysaa inay ficilada kala xoog badan yihiin. Tusaale ahaan oo kale hadda dii aad fiiriso ereyga ninakutamani waxa dhihi kartaa oo kale ninakuhitaji mise ninakutaka. Haddii si loo fiiriyo qofkan qaab hebel inuu ku rabo laga yaabo. Tusaale ahaan oo kale ninakuhitaji waan ku baahanahay. Qof haddii hitaji oo ku isticmaalo waa asigoo ku isticmaalay oo kale asigoo ku dhahay ninakutaka. Laakiin taakada iyo hitajida awood badan. Waa isfahanaa malena taka iyo hitajida awood badan. Tusaale ahaan oo kale qofkan marxaladan oo ku dhahayo waa ku baahana ee ku xiran tahay. Qofkan caawinaad inuu u baahan yahay oo kale hitaji markuu isticmaalay ninakuhitaji waan ku baahanahay. Qofkan baahi saaido ku qaba. Ninakutaka waan ku rabaa maybe wuxuu rabaa inaad wax hebel inaad kala shaqeyso waxaasna oo san saa'id kaaga baahneen. Waxa sameey kartaa qofkaas uu ka maarmi karaa oo kale laakiin hadii uu ku dhaho ninakuhitaji waan ku baahanahay qofkaas caawinaad amal kaaga baahan yahay. Laakiin haduu ku dhaho ninakutamani taas waa sheeko kale. Waa isfahanaa malena hiyo ni mambo mengine ambayo anayeambiwa anafaa kuzingatia. Qofkan lagu dhahay saas inuu iska fiiriyo laga rabaa. Maana yake kitenzi tamani nina maana iko na uzito fulani. Waxoogaha culays hebel ay leedahay macna. Tamani damac hana loo isticmaalaa Soomaali hanta. So waxa leedahay ninakutamani haduu qof ugu dhaho basi waxa laga rabaa qofkaas unafaa ku muangalia. Qofkaas waxa laga rabaa inaad si gooni u fiiriso anapotumia neno tamani damac markuu ku isticmaalayo. Okay, ninahitaji jumlada shanaad ninahitaji kupumzika. Ninahitaji waxaan u baahanahay. Hadda meesha hitaji hadda marina ninahitaji waxaan u baahanahay kupumzika inaan nasto.
ninahitaji kupumzika waxaan u baahanahay inaan nasto qofkan isla qofkan wuxuu dhihi karaa ninataka kupumzika lakini anapotumia kitenzi hitaji inamaanisha anaitaka zaidi saido ugu baahan yahay na nasinta wasifana umalena anahitaji zaidi saido ugu baahan yahay okay jumlada lihad unaweza kunipigia baadaye unaweza kunipigia baadaye waa laga yaabaa mise waa awoodaa mise waa isoo wici kartaa unaweza waad awoodaa kunipigia inaad isoo wacdo baadaye hadhow isoo wici kartaa waa macna kartaadaas weza taas sababayso laakiin haddii la kala dhigo waxay noqonaysaa unaweza waad awoodaa kunipigia inaad isoo wacdo baadaye hadhow haddii jumlada soo gaabinaysa maxaa kusoo gaabinay hadhow waad isoo wici kartaa unaweza kunipigia baadaye kama kawaida jumla toddobaad kama kawaida tusaale ahaan oo kale kama kawaida waxa waa sida caadada aheed oo kale waa kama kawaida sida normalki noo aheed oo kale waa tusaale ahaan oo kale wewe ni muuzaji labda uko na duka au chochote kile unapouza qofa wuxuu ku weydiiyay waxaan beecooda maxaa waaye na labda shaygaas beeciisa na mara mingi haibadiliki isma bedelayo shaygaas beeciisa so waxa ku leedahay kama kawaida sida caadiga ahayd au waxa isticmaali kartaa oo kale kuna yule anayekuhudumia unapouza au sokoni tusaale ahaan oo kale marka suuqa joogto kale qof ku adeegaya jiro mara mingi unakuta waxa arkaysa kuna wale ambao wanazungusha vyakula kwa cunto wareejinaya jiro au chochote kile wanaouza pale haswa wasichana gabdha u badan hata suuqashan isliyo kale gabdha ay wareejiyo iibiyo cabitaan oo kale sharubati iwe ni chai ha hada shaah iwe ni chakula cunto ahaato so qofkan wax hebel kugu bartay mise cunto hebel macnaha ugu baratay ina ka qaadato mise qaxwo iyo shaah qoftan iibisa so adiga qaxwadeeda jeceshahay okay linganisha na chai marka shaah u barbar dhigto wewe unapenda gani unapenda kahawa so wewe ku imaaday wewe ku weydiin rabtaa shaah ma kusiya mise kahawa so intaysan hadalka ku dhihinba waxa leedahay kama kawaida sida caadiga ahayd so adiga caadadaada waxa waaye most of the times waxa cabtaa kahawa qaxwada cabtaa basi yeye anaelewa anafanya nini waxa ku shubaysaa qaxwada so kama kawaida eray oo furan oo la isticmaalo waxaan dhahnay jumlooyinka furan oo la isticmaalayo isku day ina xifdiso oo seeta ku isticmaasho because at the end of the day adiga subax marka shaqo soo gasho ilaa iyo maqribkii oo kale inta shaqo ku jirto jumlooyinkan sabab ku isticmaasha ku qabsanayso bila shaka so hadii jumladaas ay xifdisan tahay maxaa sameynaysaa horaabka isticmaalaysaa so hadii luqadda ay kugu cusub tahay waxa laga rabaa wixii ku sii badbaadi lahayd oo suuqa ku sii joogi lahayd inaad xifdiso inta shaxdeeda aasi kala fahmaysa naxw ahaan inaad fahanto waa qasab koorso dhameystiran inaad qaadato waa qasab hakuna shortcut hakuna njia fupi wada gaaban ma jirto oo waxaan lagu baranayo laakiin in the process waxa laga rabaa wixii ku sii badbaadi lahayd oo ku sii shaqaysan lahayd ukiwa sokoni unafaa kufanya nini unafaa kuhifadhi waxa laga rabaa inaad xifdiso kisha utumie kabacda isticmaasho haya na sentence yana na jumlada sideedaad ninaomba waxaan baryayaa nambari yako nambarkaaga ninaomba nambari yako najua wengi kwa sasa wanafikiri ni mvulana tu anafaa kuomba nini anafaa kuomba nambari ya msichana au ni msichana anafaa kuomba nambari ya mvulana kwa hali yoyote au kuna mtu amekuhudumia awe ni fundi awe ni mtu ulikuwa unanunua kitu kutoka kwake ama wewe ulikuwa unauza kitu so kwa yule ambaye ulikuwa unamuuzia au kwa yule ambaye ulikuwa unanunua kwake
unahitaji, utamhitaji huyo mtu siku ingine, sivyo? So markaas laga rabaa inaa isticmaasho, maybe aa isticmaali kartaa naomba nambari yako ya simu kale, naomba nambari yako, waxaan baraya nambarkaaga. So isiwe tu yeesan ahaanin kwa hali fulani, xaalad hebel leh in oo hali fulani moja halko xaalad leh in nambarada lagu kala qaato. Labda katika biashara mara mingi huwa unaomba mtu nambari yake kwa sababu kesho yake utamhitaji huyo mtu. Aya, nambari ya 9, nambari ya 9, kituo cha basi kiko wapi? Kituo cha basi kiko wapi? Kituo cha basi kiko wapi? Awe na xarunta baska mise stationka baska. So wa stage ka na basaska taagan yihiin oo kale waxa la kituo cha basi wa xarunta basaska kiko wapi wa awe. Mise meesha basaska istaagan wa awe. So wa station waxa la kituo. Waxa kale arki karnaa jumlada tobanaad kituo cha polisi. Kituo cha polisi wa police stationka. Na police stationka xagu ku yaala, kituo cha polisi kiko wapi? وعملنا ان عشركه ان صفي عن لو فايدستي جملooyinkaas furan. Numberka meesha uu ku qoran yahay videoyaasha badana numberada way saaran yihiin. Numberkaas nagala soo xiriir wixii caawinaad u baahan tahay ha ahaato luqadda Englishka, ha ahaato luqadda Soomaaliga, ha ahaato maadada xisaabta. waa nagala soo xiriiri kartaa, casharadaas online ku qaadan kartaa, qayb iskuul ku soo biiri kartaa. Mar walba idin soo xasuusinayna channelka in la taageero. Cashirkeena halkaas ayaa ku soo gabagabeynayna. Wabillahi tawfiiq.